waa kuwa la qabsaday kuna baahay la dhaqanka halkanna waa kuwa si fiican ugu shaqaystay deegaanna ka baxsan dhulkana waa kuwa u noqday hooy ay degaan geelan aan loo waarsanaya halkan loo soo dhoofiyey ku dhawaad 1800 markii ay dunida hormartayna geel waxa uu noqday mid faraha laga qaaday oo la sii daayay waa kuwa u diyaarsan inay ka faa'iideystaan xaaladaha deegaanka si ay isaga ilaaliyaan ciidda waxay leeyihiin laba baar oo indhaha dhogortooda ah sankana waa kuwa xoog u xiraya sidoo kale waxay awood u leeyihiin inaanay muddo badan biyo cabin ilaah baa mahad ku leh oo u sameeyay kili aad u xoog badan iyo midhicir haynaya biyaha xaqiiqatan kuruska wax saameyn ah kuma laha haynta biyaha ujeedadiisu waa inuu kaydiyaa dufanta haddii cunto yaraan ay dhacdo si loo isticmaalo ratiga baarqabka ah waa mid xoog leh oo danaynaya qaalmaha riman isla markaana ka hortagaya awrta kale waxayna guusha ku gaaraan siyaabo kala duwan waxay afka ka soo deynayaan ubur aad u badan oo ay la socota doobada uburta afka doobinta iyo weliba isku garaaca miciyaha waa qayb ka mid ah qooqiisa iyo dagaalkiisaba dagaalkoodana waa mid ku qotoma raadinta qaalmaha waaweyn iyo kuwa aaranka ah mararka qaarna waa kuwa isjabiya oo dhaawacyo xoog leh sugaysta geelu waxa uu noqday mid aad u kora isla markaana xoog u bata waxayna noqdeen dhibaato cusub xisaabintii ugu dambeysay ee la xisaabay waxay 300,000 oo neef oo geel ah maadaama aanay jirin bulsho kontaroolshana sanad kasta waa mid xoog u labanlaabma koriimadooda deegaankana ma laha wax dugaag ah oo cunaha ama ugaarsada si aad ula socoto muuqaalada cajiibka ah ee halkan aan soo geliyo barteeda YouTube-ka fadlan gabladka furo kanaalkan subscribe saaro si aad ula socoto muuqaalada xiga ee mustaqbalka